بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام صلوا على أخيار شرفت له. maanta waxaan sharax doonaa insha Allah taala cashiriyeen taxnaa ahaa maanta waxaan sharax doonaa cashirkii ahaa GIS aan sharax doonaa insha Allah taala Geographical Information System. mar hore waxaan soo sharaxnay laba cashir oo soo sharaxnay sida loo abuuri lahaa GIS kii sida loo edit garan lahaa waan soo sharaxnay. maantana waa cashirkii saddexaad wuxuu quseeyaa substation. runtii GIS waa aad u jeedaan kuwan waa substation uu leeyahay waa kana substation waa kuwan waa intaan kuwan inta yaalan waa intan waxa la markaasay substationka runtii substationka waa maxay runtii substationka waa part of electrical qayb kamid ah electricalka generation. wuxuu leeyahay marka transmission line uu leeyahay marka transmission ama towers waad aragteen balaha oo dheer taagtaagan iyo ama iskale towerada oo macnaha waxa waaye taagtaagan waxa la markaasay fiilooyinka oo mara oo intaas waa transmission lines. waa runtii transmissionka fiilooyinkiisna waxay sidatan waaye double iyo single. waxaad aragtaa mar qaar leh fiilo oo weedarsan ama kala socdo ama 6 fiilo ama 3 fiilo hadba macna waxa waaye dabka meeshu macna waxa waaye u hoog badan iyo fiilooyinkan u hoog badan yihiin. substation ka transformer waa voltage from high to low. transmission ka runtii waxa waaye marka hore high waaye high wuxuu ku bilaabanaa sidatan high waxa waaye wixii high waxa waaye voltage kiisa ayaa sareeyo. marka voltage kiisa waxa waaye marka wuxuu tagaa marka 162 kVA ama iskale waxa dhigi kartaa 66 intaas waxa la dhigi karaa markaasi high voltage aan lahaa markaasi high voltage ayaa loo yaqaanaa intaas. marka wixii kala kusii hooseeyo waxaan dhigi karaa waliba 11 kV inay high tahay waliba laakiin adi high like meelaha horta low waxa uu bilaabnaa soo filaayo 440 hadii jabkaaba mar haduu waxa waaye guriyasha oo artay kula keeno single phase ki artay two line ki waa kuwaas marka 440 ama 440 waa ka kuwaas waxa markaas low voltage ki marka dabka marka maduu yahay marka 66 kV waa soo yareynaa waxa la keenaa markaas 33 la keenaa kadib hadana waxa 11 kV la keenaa kadib marka intaas marka processkaas ayaa loo maraa waxa waaye inuu la sii yareeyo sababtoo waxa waaye generatorka motorka inta ku soo kaco waa dad aad runtii u badan waaye si toos macnaha guriyaha loo keeni karo. waxay soo marayaan marka tadwiir ay soo marayaan marka step by step ay soo marayaan kadibna waxa la keenaa marka single phase ki ahaa 220 voltage la keenaa wala sii yareynaa marka intaas la sii yareynaa waa guriyaasha waa 220 runtii leedarkii iyo hatifantal iyo intaas marka waxa la isku keenaa marka intaas waa marka dabkii marka waxa laga dhigaa markaas dab aad u yar markaas. okay waa intaas waa substation kii maanta waxaan rabnaa markaas substation ka qaabkee marka waxa waaye uu sameeynaa markaas inaan ku sameeyno jange ama substation ka inaan sameeyno inaan abuurno. first one waxa tagay marka edit tag edit markaan tagto waxa la marka intaan edit tagin waxa la edit tag edit start edit kadib waxaan soo doornaa intaan tagaa marka waxa marka substation ka waxa rabaa marka inaan hadhow inaan sameeyo rabo waa doornaa markaas waxa la markaas intaan waxa yaalo marka hal substation ay yaalo dooro midkan kalena waxa waaye intaan xogaar inta soo baxso saad ku aragto ama weynayso xogaar intaan halko substation ay yaalo midna waa kana
midkan waa kana marka substationka marka hore waxa sameynaya marka dooro tigta saar soo hadhow marka wixii inaad wixii inaad badishid wixii inay si loo dareemo kale substationka waa kana sida tan kana tig saaro asina naftirkiisbu kana tig soo saaro substationka kadib waxa tagay marka substationka tag runtii waxa dhigay marka right click leh substation marka iska markii waxa leeyahay markaas sida tan waxa leeyahay marka color change horta marka hore dooro triangle kan dooro oo dhaxda ah dooro marka colorka waxa waaye color aad oo black waaye waxa ka dhigaa marka color oo asaan ama guduud ka dhigaa marka intaan taawana marka waxa leeyahay markaas red kali kadib marka numberkiisa halkan aad ku bedeli kartaa markaas ilaa waxa geynaa marka 20 gay 20 marka geyso waxa leeyahay markaas add symbol tag markaas ama edit symbol ande marka edit symbol kan waxa leedahay marka midkan i door horto midkan i door kii dhaxdan gelinay waaye kadib waxa leeyahay markaasi color kana waxa iga dhigay marka asaan waa kana asaanku uu leeyahay ama guduudka uu leeyahay kadib waxa leeyahay markaasi ilaa size waxa iga dhigay marka ilaa 25 ama 24 ka dhig marka waxa leeyahay markaasi aad ka soo dara markaasi marka qayb marka symbolku wuxuu noqonaa markaas qayb saan sida tan amal oo noqonaa marka sida tan amal kii oo hore ayaan xogaar waxa rabnaa inaan ka bedelno kale saan ka dhigayna marka wuxuu leeyahay marka sida tan hadduu size-ka sida tan ku yahay ama ka dhigo triangle daba ka dhigan kartaa hadhow triangle waa ka dhigan kartaa kadib marka waxa leeyahay markaasi xogaar ilaa lambarada i bedel marka lambarada ilaa waxa ay geynaa marka 18 gay saan xogaar waa kana sida tan lambarada 18 waa kana hadii inta waxa aad marka casana ahayd hadda waxaan ka dhigan karnaa marka black ka dhiganaa marka waa kana black igrig okay black ama colorooyinka inta ku soo dooranay marka colorooyinka halkaan ku soo dooranay halkaan waliba hadda waxaan si jeclaan lahaa inaan riisa amalna ka dhigto markaas kadib waxaan leeyahay marka okay marka hadhow waxa arkay marka intii substation i doorneed ja already colorada waxa waaye janji naqnaa marka okay markaasi waa kana intaan fiiri waa kana fiiri halkaan ka fiiri kana fiiri kana fiiri kana fiiri waa kana fiiri isku bedel inta ka fiiri marka waa kana kuwan balay waxa isku bedel markaasi blue isku bedel waa kana halkaan substation ka fiiri inta waxa waaye marka qaabkii marka substationka inaan ku sameeyo karada inaan ka bedelo waa karar bedelid oo substationki how to change a substation waa intaas waa markaasi waa mapka waa saan waaye substationka ama kararka loo bedelayo ama karar change-ga waa qaabkan aan loo sameeynaa markaasi kadib marka maxaa xiga marka waxaan rabaa marka inaan magacaabo substationka inaan magacaabo magac inaan u bixiyo ayaan rabaa markaasi okay substationka inaan magac marka u bixiyo waxaan tagay marka halkaan tag substationka dul tagta markaasi waxa ku dooranay halkaan ku dooro markaasi oo mail ay qoran tahay marka open table mail ay qoran tahay mesh tag markaasi kadib ku dhufo markaan ku dhufto waxa ay soo bixayso iska markii bookis yar ay soo baxayo oo intaan ah kana ay soo baxay markaasi bookis kan yar haduu ku soo baxo la soco substationka lambarada si markaas waxa tagay horta halkaan tag halkaan marka tagtid waxa leeyahay markaasi ka door already wixii ay dooran yahay marka waxa leeyahay markaasi ka soco inta tagaa markaasi inta waxa la marka AD maxaa u bixinaa markaasi AD la markaasi AD waxa leeyahay markaasi already AD way sameeyay substation way sameeyay waxa leeyahay markaasi AD oo substation waxa leeyahay markaasi 2 ka dhig markaasi halkan waxa way substation ka magaciisa ama name ka qor markaasi name of substation magac laakiin of marka hore capital ka dhig markaasi name substation ka S midkii koowaad kan kale waxa weeye dhigi bedel markaas asina waxa markaas 2 ka dhig substation ka naamka i bedel asina markaas waxa la markaas halkan ka dhig marka midkan waa marka i dooro midkan substation name markaas name
marka hore name-ka waxa waaye inaad ka dhigto waaye capital letter kadib marka xarfaha kale iska yaray kadib inta markaa sameeyso java already maanta kali waxaan sameeynaa inaan sameeyno id-ga inaan lambarka value aan siino kadibna waxaan siinaa marka substation names cashirada kale ayaa noo xigi doono oo la dhahayo markaasi substation ka hadeer oo meesha oo yaalo magaciisa dhan inaan ka horno magac kale noon cusub inaan u bixino markaasi waa cashirooyinka waa step by step maanta kali inaan fahanaa how to change a substation color kadibna waxa waaye substationka sidoo loo abuuraa namekiisa id iyo substation name kali ayaa diyaarinaya markaasi kadib cashir kale soo socda wuxuu noqdaa markaasi dhammaan magaca awal ku qornaa inaan dhanka ka remove gareyno ayaan marka magac kale cusub inaan u bixiyo markaasi magacyaal kale oo anaga aan keensanayno ayaan u bixinayna markaasi kali laakiin maanta ina faanta laga rabaa bas how to change substation kala soo bedelo substation waa kana hadda kala soo bedeshay waa all asar waxa kale blue waa dhignay kadibna marka waxa sameeynaa marka substation marka saa u sameeyso kadib awr id awr markaas id substation awr bas intaas ayaan ku joojin doonaa insha Allah taala asxaabta ashirka kale oo nagu xid doona waa dhamaan ayaa magacii remove kale doonaa magac kale soo u bixin doonaa insha Allah intaan dhan waxaan soo doonaa marka magacii oo qabal uu lahaa ayaan ka saar doonaa marka waxaan u bixinaa marka magac cusub aan bixinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh